kulankani oo ahaa kulan loogu magac daray la kulanka warbaahinta ayaa waxa warfidiyaanka u sharaxayay waxyaabaha dawladda u qorshaysan sanadada iyo bilaha soo socda wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka mudane Cawaale Ibraahim Shirwac kulankaasi oo ka qabsoomay xarunta xiriirka warbaahinta iyo dawladda ee ku yaala xarunta wasaaradda warfaafinta ee magaalada Hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo dawladdiisu markaa waxay eegtay wadaagayaasha ama sektaradaasi baahida badan ka jirto in taabtay kuwee wax laga qaban karaa marka waxa muhiim noqotay in aan ahmiyad la siiyo wax soo saarka shaqo abuurka iyo biyaha waxa aan ku soo beeganay waqti ay ka dhaceen wadanka cyclone-kii ama duufaanadii ugu waaweynaa oo ogtihiin qasaarihii ay geysteen wadanka marka taas waxaan sheegayaa marka in dawladda aanu la kulanay the challenge kaasi waxa kale oo ogtihiin saxaafadda in ka soo rabin inaan ku dheeraado in iyada lafteedu oo inagu firmay carqalad xagga dagaalada oo dawladda aan dariska nahay inaga yimid marka ay labada arrimood aan sheegay aan magacaabay waxay u baahdeen marka in la geliyo dakhligii dawladda raha ayaan ahmiyadina oo dalkeenu wax weeyaan meelo badan oo wax laga beeri karaa jira dardargelin baa la sameeyay wasiirka beeraha iyo wasaaradda beeruhu dardargelin bay sameysay in fact warbixintoodana waad haysaan meediyaha waad kala socotaan sidoo kale waxa wax laga qabtay ama la dardargeliyay dawladda dardargelisay kalluumaysiga bariga oo kale mashaariic waaweyn baa laga fuliyay oo biyaha ah boorama sidoo kale waxay yihiin mashaariicdan taaban doono ee imiga biyaha ah wax dawladdu ay ka qabanayso already la bilaabay waxa iman kara hoos iman kara iyaga laftigooda in wadooyinkii la sameeyo way hadii la sameeyo wax soo saar iyaga laftigooda in wadooyinkii infrastructure-kii wax laga qabto waxa weyn qorshihii 5 sano hadii aan rabno xoolaha inaan dhoofino intaasoo milyan intaasoo kuna xoolo ah sanadka 2 sano ka bacdi maxaa loo baahan yahay 5 sano in la maro qorshihii oo dejisan oo dawlad kasta iyo sector kasta ama wasiir kasta intii uu mari lahaa marka waxa aan soo jeednay oo dawladda Jarmalku ay markaa inagu caawisay wasaaradda qorshaynta gaar qaab ay ka hayd soo jeedidaasi in la keeno lacag ku dhow 22 milyan oo markaa Hargeysa biyo gelinteeda gudaha ay socon doonto maraan weydiiyay wasiirka su'aal ku aadanayd xarun baarlamaan oo xisbiga u cid ku eedeeyay in hay'adda UNDP magaalada Badhan uga dhisayso baarlamaanka Puntland waxa uu kala socdo iyo qorshayaasha dawladda ee uga yaala iskuulada dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool Soomaaliland oo hadda badidoodiba xidhmeen wasiir kasta xogaal ma aha wax kasta wadanka ka jira wasiirada qaar kood mandate kala leh qaar ba xog badan haya qaar ba amniga haya oo aan weyn marka waxaan rabaa in halka marka kuwaad ka sheego in aanan xog tahayn in laga dhisayo marka taasan kaga gudbaya waan baari doonaa laakiin xogta ma hayo waxaan ku sheegay hadda inay ka go'an tahay oo aan hayo qorshahoogii inay hor u kabcinayaan baahiyaha waxbarashada baahiyaha gaarka ah waxay ila muuqataa in arintaasi aanay si fiican isu waafaqsanayn hadiiba si ay dhacday wasiirka waxbarashada waan kala hadlayaa geesta kale mar wax laga weydiiyay wasiirka warqad uu dhawaan soo saaray wasiirka qorshaynta Soomaaliya oo ku aadanayd deeqaha la siiyo maamul goboleedyada Soomaaliya oo Soomaaliland ku xusayn la siin doono 19% waxa uu yiri warqadda uu ninkaas qoray wasiirka qorshaynta qaranka ee Soomaaliya waxay u dhaxaysay iyaga iyo hay'adaha caalamiga soo wada shaqeynayaan annagana taayada inoo dhaxaysay isaan u wada shaqeynana Soomaaliya iyo hay'adaha soo wada shaqeeyaan waa iyaga u taala waa Idris Bershiya telefishinka Universal Hargeysa